الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مدحوينه ku-xigeenka madaxda kale bahda saxaafadda mudanayaal iyo marwooyinba waan salaamaya assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh reer Soomaaliland inta shaashada naga daawanayna waan salaamaya assalaamu alaykum aan jaarintina warbixin yar oo kooban inaan bixiyo hadalkii intii mucdal ahayd madaxweyne ku-xigeenka yiri sidii madaxweyne ku-xigeenku uu sheegay halkan waxaan ka baxnay arbacadii anagoo wafti ballaarana oo uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenku ujeedada socdaalkaasi waxa ahayd laba sidii madaxweyne ku-xigeenku uu sheegay mid waxay la xiriirday abaaraha midna waxay la xiriirday heshiis ku saabsan isticmaalka madaarka berbera ee dawladda Imaaraadka labadaba alxamdulillah waa ku soo guuleysanay waxaan la kulanay inta halka aanu joognay madax badan madaxda dawladda iyo madaxda hay'adaha khayriga ah aan la kulanay aad bay noo soo dhaweeyeen waxaan jecelahay fursadan ka faa'iideysto halkan uga mahad celiyo sidii wanaagsanayd ee diiranayd ee noo soo dhaweeyeen waxa la inoogu ballan qaaday xagga abaaro runtii arrinka noogu kul lahaa in la inoogu deeqo lacag ilaa 2 milyan oo dollar ah insha Allah waxaan rajaynaynaa in lacagta raashin lagu soo iibiyo amba halkan laga iibiyo amba xagga laga soo iibiyo marka waa khayr inoo soo kordhay oo runtii farxad leh weey arrinka ku saabsan saldhigga amba isticmaalka military ee madaarka berbera waxaan ka wada galay wada hadalkaas wuxuu ku saleysnaa go'aamadii ka soo baxay baarlamaanka ayuu ku saleysnaa waxaanu ku heshiinay inay isticmaali karaan madaarka berbera muddo 25 sanadooda innakana inay naga caawin doonaan mashaariic fara badan oo la xidhiidha kaabayaal oo ugu horeeyo jidka isku xidhaaya berbera iyo wajaale jidka berbera iyo wajaale isku xidhaaya muddo badan baa laga hadlayay malaayimka muddo 15 sanadooda waa laga hadlayay laakiin ma hirgelin laakiin heshiiska way ku jirtaa in ay dhisaan jidkaas waxa ku jira inay madaar cusub oo madani ah oo diyaaradaha xamuulka iyo rakaabkuba ay ka duuli karaan inay noo sameeyaan waxa kale oo ay naga caawin doonaan insha Allah xagga amniga oo ay siin doonaan tababar oo ay noo siin doonaan ciidamadeena booliiska iyo ciidamadeena badaba waxa kale oo ku jira mashaariic la xiriira kaabayaasha adeega dadweynaha sida tamarta biyaha caafimaadka waxbarashada inta mashaariicaas socoto heshiiska waxa kamid ah in la siiyo mudnaanta koobaad shirkadaha wadaniga iyo shaqaalaha wadaniga reer Soomaaliland waxa kale oo ku jira heshiiska in dawladda Imaaraadku u furto dhalinyaradeena suuqa shaqada sida gidigeen baynu wadognahay maanta mashaakilka ugu waaweyn ee hor taagan dadkeena waa shaqo la'aan ba kamid ah runtii anbaba ka koowa marka in suuqa laftigiisa inoo Faransa ugu furaan wadamada kaleba heshiiskaas waxaanu qabnaa inuu heshiis aad iyo aad u qiimo badan si madaxweynuhu sheegay waxa ku jira fawaaid badan mid dhaqaale mid siyaasadeed iyo mid nabadgelyaba intaba runtii way ku jirtaa inakoo kaliya inooguma jirto waxay ugu jirtaa gobolka oo dhan bay ugu jirtaa cid aniga heshiiskaas uu ku yahay hantaaqo amba uu mataqaanaa uu hadidaad uu ku yahay uu keenay runtii ma jirto waa mashruuc nabadeed iyo harumar cid walba nabad iyo harumar way doonaysaa inana intaas sameeyno doonaynaa intaas sameeyno rajeena runtii inaan kana helno waxa runtii si madaxweynuhu ugu baaqay dadka reer Soomaaliland inay mashruucaas soo dhaweeyaan oo taageeraan mararka qaarkood waxa la yiraahdaa in time ka sheegteen mid berigii hore sheegteen
markii dekada ayaa sheegteen maxaa soo kordhay marka faraqa u dhaxeeya waxa weeye markii hore wuxuu baa jiray un carab laalaadin heshiis mu ahayn kan waa heshiis waxaanu ku heshiinay in mashaariicda ma taqaanaa ay noo dhaqan galiyaan waliba muddo 3 sanadood inay ku dhaqan galiyaan ayaanu ku soo heshiinay marka runtii waa arrin weyn oo inoo soo kordhay waynu u baahanahay oo inaynu una baahnayn inaynu wada taageero aad iyo aad baa u mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته